gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada ee Somaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh oo maanta ka qayb galay xafladda furitaanka bandhigga buugaagta ee Book Fair oo maanta ka qabsoontay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa mar uu goobtaasi ka hadlayay waxa uu si adag uga hadlay heshiiskii ay wada gaadheen saddexda xisbi qaran ee Somaliland gudoomiye ku-xigeenka oo arintaasi arrimo kale ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay mid ka mid ah caqabadaha inaga hortaagnaa doorashada tii saddexda xisbi ku heshiiyeen maalinta dhaweey ودي كوميشن كوا لقوا مرسنا صرنا ديسي هذا لقوا سو مرمي كم إذا إن سامي قيب سجي سي حلال الله هلا كم إذا إن دقاله هلا إلى تهاي تال حلي مركل لقي مادو عقبت دي مدة سوتشرتي حلقة أبا هنايد مركي دورشو إنك لقبتي لما كوني شنتينا لقى جود بيوا مانتو كليا والدور كان لقوا كليا وحي كدم بيسه تركوا بودك لقى قبنايا موقفك أنا شخصيا أن قبا إن أنت كقبا وكان هرو قبي اسمنا بالدليل كقف موقف قاتو ميل استاجو قف كلنا موقف كلا قاتو ميل كلا استاجو دو إن نجوشيش كواحد لا يراها يماد وإن لا يوضح الله بينه مدحوينها مان تشريكه الرئي أحمد محمد محمود سيلانيو qoraal buu sameeyay saddexda xisbi qaran buu u diray inay xal ka soo gaaraan bal sida loo qaybsanayo kuraasta baarlamaanka way ka soo gaari kari waayeen anu waxaan ka mid ahaa xubnihii xisbiga kulmiye ka socday madasha iyo gogasha ay akademiyadda nabadda iyo horumarka Soomaaliland qabatay xubnihii kulmiye ka socday ee xisbiga ka socday baan ka mid ahaa waan soo saari kari weynay xal ah in xisbiyadii wadani iyo ciidiyo kulmiye ku heshiiyaan formula wax lagu qaybsado madaxweynaha aanu gudbino inay qaybin kari weynaye adigu madaxweyne qaybi madaxweynuhu wuxuu yiri haddii musharaxiintii ka baqdeen in cod ay ku waayaan inay wax qaybiyaan qayb cidi ka dudda anna taariikhmo kuma gelayo inaan sida maanta loo fadhiyo doorasho lagu geli karin oo aanay cadaalad ahayn aan maskaxdeenu ina akran ama mas'uuliyiintan kamid ahay in hakran ama aan wax kale in dhaxgelin lama waayayaan qaba Somaliland 82 xildhibaan oo matalaya gobolada kala duwan ee dalka inay qaybsato lama waayayaan isleeyahay dalka Awdal wuxuu kamid yahay meelaha aadka uga hadlaya arinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada qodobun baan doonayaa inaan idin kaga baxo oo idin dul joogsado gobolka Awdal wuxuu kamid yahay gobolada ugu xoog badan ugu dhaqaalaha badan uguna population-ka badan jamhuuriyadda Soomaaliland suurtagal ma aha waxaanay raali ku ahayn in Soomaaliland ka hirgalo ma ihidin dad loo joojin maayo la yiraayo la iska qabsado wixii la qabsanayo maalintii u dambeysay ee madaxweynaha ay u yimaadeen odayaashii dhaqanka gobolka Awdal ereyadii uu isticmaalay madaxweynuhu waxa kamid ahayd iyagoo qadiyada doorashada ka hadlaya veto power bad leedihiin doorasho aydan raali ku ahayn laga qaban maayo dalkan waa ereyadii madaxweynaha taariikhda ama kursiga hal lagu waayo had iyo jeer waxa cadaaladda meel daran ka tuura u habrashada kursi qof ku fadhiyo oo uu ka ilaalinayo waxba dhaawici waxbaad ku waayay jacayl badani imahayo oo tarbiya suufiyaan qabaayo kuma ababsaniin aan kursiga jecelahay ma filayo inay iga suurta galayso haddaan saacadahan soo socdo dhaafayo waxaad xaq u leedihiin oo mustaqbalkiina inaan abadan xasha lillah waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada Boorama